muuqaalkan muuqaaladii hore oo ku duwan yahay kan waxaan rabnaa inaan ku kala dhigno muuqaalkan hadda aad u jeedid sida loo sameeyo muuqaalka isbuucii hore aan soo dhigay dadka waxay inta badan u codeeyeen muuqaalkan labaad inaan ka soo sameeyo sida loo sameeyo ama breakdown horta mid koowaad waxa waaye muuqaalka inaad daawatid marka intaadan edit gareyn ka hor muuqaalka inaad daawatid wuxuu u baahan yahay iska daa caajiska iyo muuqaaladan sida u dubtid aad soo dhigaysid isticmaal text animations xitaa haddii aadan sameyn karin la soo marka waxaan step ka bilaabnaa ani muu maleynaa inaad aqoonin sida captionka loo sameeyo after effects sid xitaa CapCut sometimes marka waxa after effects u baahan jiro waa isla arki doonaa intii lagu sameyn karo Premiere CapCutna lagu sameyn karaa marka koowaad waxa ka bilaabaynaa zoom back muuqaalka inuu gadaal u laabto muuqaalkan sawirkan waxa ku dhameystiray Photoshop generative fill hadda heli kartid okay hadda heli weysid wax background caadi mugdi ka dhig يعني سيدان oo kale hada Photoshop alcal waayo waxa sameyn karnaa mugdiya sidaan oo kale ugu dhigay macnaha waa zoom gareene kadibna gadaashan waxa ku gadaal u dhigay mid mugdi ah horena waa ka saaray si aanan xogaa loo fahmin hal groupna waa ka dhigay marka waxa soo xigo horta background ina muuqaalka ka saari kartid CapCut wuu awoodaa Premiere ma awoodo After Effects sameynaa laakiin background marka muuqaalka ka saarno waxaan u xigo sidee muuqaaladan soo baxayaan hadii oo si toos ah hal mar ah soo wada qaadno positionka animate gareyno sidaan camal hada soo baxaan xogaa ma qurux badna marka waxa fiirinaynaa sida maxaa keenay in uu ekaadaan si real ah xogaa maxaa ku jiro effectiga ku jiro inay xogaa iftiimaan waxa ku jiro glow effect lahaaya ku jiro hadii glow la awoodi waayo trick kale la isticmaali karaa horta waxa ka bilaabaynaa movementii koowaad waxa sameynaynaa clipka koowaad waxa soo qaadaynaa kor ilaa iyo xageynina meesha arabno kuwan kale meesha arabnay noo joogan markii saddexda asan u keenno waxa sameynaa marka hoos u soo deji kan hoos u soo deji kan saasoo kale hoos u soo deji marka saan u soo galayaan markay saan u soo galaan wili sida arabnimo ahan markaan waxa ku apply gareynaa effect lahayo warp wuxuu sameynaa muuqaalka dhinac jileecina macnaha hadii wax kiis ay yaalaan si real ah xogaa dhinac u jifaan si marka perspective sida loo raaco effectkan oo ku apply gareynaa wuxuu leeyahay preset badan kii adiga as leedahay uu ku haboon yahay angle-ka raacay hadda markaan oo ujeedaa midkan si tadiif u shaqeynaya midka dhaxda isku effects maahan kan geeskana halko meeshan plus ka yahay kan minus oo noqonaa kadib ina iftiimaan screen video ay noqdaan waxaan awoodi karnaa laba midkood oo ku sameyn karnaa haduu glow leeyahay glow oo ku fureena haduusan glow lahaynna labadan waa update waa duplicate gareynaa midka hoose ayaa Gaussian blur exposure-kiisana dheereynayna blur-kana waa ku fureynaa si uu soo iftiimo haddii sidaas noo shaqeyn weysana waxaa awoodnaa in midka blur-ka exposure-ka kor soo saarno dhahno overlay ama screen labadaas midkoodna way noo shaqeyn kartaa qaybtii koowaad oo siinkii koowaad muuqaal ku bilaabanaya sidaas oo ku dhameynay hadda waxaan galeynaa qaybtii labaad waxaa textiga oo san wajiga u maraayo textiga san wajiga u maraayo kaliya After Effects lagu sameyn karaa haddii aad rabtid si manual ah textiga oo waxaa jira template laakiin sidaa rabtid ma wareejin kartid asaga is xukumo hadda kan wajiga oo saas u maraya laakiin kaas ma sameyn kartid marka After Effects ku sameynaa marka After Effects aadaan u tagno muuqaalka arabno waxa ku daroogareynaa bathkaas arabno in textigeena soo raaco marka bathka wax kale ma aha pen toolka caadiga taqaaniid waaye pen toolka saas uu soo sawiray kadib textiga
source textiga asoo kubiyene positionka oo pathka iyo asku basta gareene marka hadhow meesha ka bilowday meesha u dhameystaa saaracaya slowga iyo movementigana waxa keenaya graph editorka xogayar oo ku bashaale waxa u maleynaa inaan fahnay qaybtan waxa u gudbeynaa hadda qaybta kale qaybtan waxa waaye labadii muuqaal se isku imaanayeen b-rollska iyo marka dhahay se isku imaanayeen kan aad u fududahay waxa u maleynaa qof kasta inuu sameyn karo laakiin marka gudbay marka koowaad si meeshii ugu dambayso meeshii ku soo bixi lahaayeen dadka qaar waxay sameeyaan gadaal ay geeyaan isku soo celiyaan taas trick fiican maahan waxa sameyn kartaa meeshii oo animation ku dhamaan doono isku dhagan yihiin ka bilaabay keyframe-ka marka hadda fiiri marka meeshaan ka bilaabayna marka kala jiidno meesha uu dhamaanayo kale ageenina qaybtii saddexaad ee background-ka 3D ahaan u soo muujinayna motion background iska adeeynay kan waxa lagu sameyn karaa aad u fudud yahay laakiin background-ka iyo subject-ka kala fogeynay 3D ahaan horta layerska 3D ka dhigay background-ka iyo subject-ga waa kala fogeynay kadib waxaan mid gareynay rotation-ka kamerada animation gareynay hadda mujida animate gareynaya kamerada markaasaan dhaho waxay soo saaray mujida oo soo muuqana marka kalena soo muuqana kana saasa asagan lagu sameyn karaa intaas oo muuqaalkeenu ogaay waxa u maleynaa inaan fahnay hadii aad fahmi weysana commentiga ku soo qori kartaa sidoo kale dadka dhahay challenge-ga labaad goormee waa isdiyaariye usbuuc dambe oo imaana ani muu hayo mid adag adinka hada ay soo diri kartiin waa okay talo fiican si dadka TikTok wax soo dhigay arwa inaan ku challenge gareeyo muuqaalka xiga ayaa noo balanaa bye